caawa waxaan isugu nimid tabarucaadkan aan ka qayb qaadanay musiibada weyneed ee ku habsatay taawaankii ugu weynaa deegaanka Soomaalida tan iyo habeenkii ay dhacday dadaal badan baa la sameeyay habeenkii uu dabka kacay ilaa waa berigi xukuumadda heerarkeeda kala duwan in dabka la baqtay dadaal badan baa laga sameeyay kadibna guddiyo kala duwan baa loo dhisinay hawsha ay qabtaan maantana waa qayb ka mid ah hawlihii guddiga uu gacanta ku hayay caawa waxaan isugu nimid inaan qayb ka qaadano qayb ka mid ah shaqooyinka xisbiga tabarucaadka waxaan ku rajo weynahay caasimada dalka magaalada Addis Ababa inaan ku qaban doono xaflad ballaaran oo dhammaan qowmiyadaha dalka iyo deegaanada ay qayb ka noqdaan oo tabarucaad lagu sameyn doono taawaankii musiibadii ka dhacday taawaanka waxaa la ogsoon yahay dad badan oo Soomaaliyeed marka laga tago gudaha waddankeena Itoobiya dareen walaaltinimo dareen Soomaalinimo oo isticka Soomaaliga meel kasta uu joogo inuu isku dan yahay muujinaya waxyaabihii daris wanaaga walaaltinimada ee xukuumadda inteed isbedelka uu keenay ka dhashay xilligii uu taawaankii suuqi waaheen uu gubtay dadaalkii aan ka sameynay maanta mirihiisa qayb ka mid ah guud ahaan geeska Afrika Soomaalida oo dhan dareenka walaaltinimo ay ka muujiyeen musiibada ka dhacday taawaankeena waa dadaalo ka mid ah xiriirka walaaltinimo xiriirka Soomaalinimo isirkayga dhaqanka wada dhasho Soomaalinimo aan ku dadaalnay muddadii isbedelka uu jiray ka dhacay deegaankeena ka hor wixii jiray iska daa gudaha deegaanka Soomaalida soo gubada adkayd laakiin maanta isirka Soomaaliga meel kasta uu joogo qofka Soomaaliga inuu kala xuduud leeyahay kala dal leeyahay haddana dareen isku mid in la dareemo dadaal la sameeyay bay ka mid ahayd waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan dadka deegaanka u dhashay qurbaha jooga ee kaalinta fiican ka qayb qaatay marar badanna bogaadiyay dadaalada la wada wanaag qaybtoodana ka qaadanayay waxaan isleenahay xukuumad ahaan in waxyaabaha wanaagsan ee siyaasadaha caafimaad qaba laga dhaxlay ee isbedelka in la gaarsiiyo qurbo joogta ku nool daafaha caalamka in badan ay codsadeen in xiriir wanaagsan loo sameeyo xukuumadda iyo shacabka deegaanka ee isku xidhay shacabka qurbaha maadaama dadkii dad isku mid yihiin duruufihii jiray awgeed furfurnaantan si ay siyaasadaha hadda abuurantay in looga faa'iideeyo shacabkeena ee xagga horumarka dalkooda ay maalgashadaan ay ka qayb qaataan in loo sameeyo in badan ay codsanayeen muddo 5 sano ah waxyaabo badan oo in muhiimad la saaray ahayd maadaama lagu mashquulsanaa gudaha haddana waxaan xoogga saari doonaa in qurbo joogta deegaanka Soomaalida aan la wadaagna xaqaa'iqa ka jira deegaanka Soomaalida doorkoodana ay qaataan caawa waxaa ku wajahan arriga Mareykanka wafdi deegaanka Soomaalida matalaya oo u socda inay la wadaagaan isbedelkii guud ee deegaankeena ka dhacay iyo xaqiiqda dhabta ee deegaankeena ka jirta qurbo joogtana ay doorkooda ka qaataan iyadoo ay qayb ka tahay dadaalada xukuumadda ay ku wajahaysa in wax looga qabto musiibadii ugu dambeysay ka dhacday taawaanka qurbo joogta dad badan oo gobolada deegaankeena Soomaalida ka mid ah shaqooyin wanaagsan bay qayb qaateen maalgelin fiican bay ka sameeyeen ceelal bay qayb qaateen iskuul ay dhiseen madrasooyin bay dhiseen qayb cid walba waxay ka qaaday door fiican bay ka qayb qaateen waana bogaadinaynaa haddana waxaan ku rajo weynahay qofka qurbaha ku nool wuxuu halka ku tagay duruufo jira awgeed dal uu garin buu tagay oo la magan galiyay caruurtiisa wax ku barta wada noolaasho ka qaatay dad kala midab kuwa cadaan ah kuwa madow cid kasta la noolyahay laakiin wada noolaashaha iyo dimuqraadiyadda way ogolyihiin dalka uu ku nool yahay shuruucdiisu uu hoggaansan yahay laakiin markii gudaha deegaankeena mararka qaar waxaa ka mid ah xubno ka mid ah afkaar dadka kala fogeynaysa afkaar dhaawacaysa dadka Soomaaliyeed wada noolaadaan afkaar dhaawacaysa wada noolaashaha dalkan waxaan ugu baaqaynaa qurbo joogta nooca inay ka waantoobaan waan la wada ogyahay dadka Soomaaliyeed ee deegaanka wada degan reerkanaga la baabiin isagoo garanayay dhulkii isaga meeshuu ku nool yahay meel kale si fiican buu nool yahay shuruudooda ka soo hoggaansan yahay madowgu inuu yahay madowgiisu ku qaylinayaa waxa isleeyahay madowga lagu caburinayaa cadaan buu la nool yahay shuruuda uu garanayaa halkan laakiin dad Soomaaliyeed oo wada dhashay isku mid ah inay dagaalamaan baa laga shaqeynayaa reerkanaga inta leh halkan aan loo soo dhaafin hal iska celiya mana yaqaano WhatsApp group ka soo hadlay fariimo khaldan uu soo gudbinayaa wax walbana waa la socdaa
cid walbana doorka ay ku leedahay kan wanaagsan ee wanaag qayb qaadanaya waan soo dhaweynaa kan ka shaqaynaya in dadka la kala fogeeyna halkaa unbuu joogiyo waddanka gudihiisa dhib kuma keenay cid walbana doorkeeda waa la yaqaana marka waxaan leenahay arrimaha noocaas ee bulshada kala geynaya kala qaybinaya colaadda abuuraya in laga fogaadaa fiican ilbaxnimada halkaa lagu helay aqoonta lagu helay waxa la bartay in dadka looga faa'iideeya ka fiican mooyaane in dadkeen lagu kala fogeeyo maaha wax walba horumar wax walba wanaagsan ee la wada in laga qayb qaatana waan ugu baaqaynaa dadka ilaa hadda shaqooyinka fiican ka qabtay deegaankeena haddana wuu furan yahay furfurnaantaas inay yimaadaan horumar ka qayb qaataan nabadgelyo ka qayb qaataan waxbarashada ka qayb qaataan caafimaad ka qayb qaataan adeegyada kala duwan ka qayb qaataan waan ugu baaqaynaa kuwa laakiin aaminsan afkaarta dad kala fogeynaysana xogtana waa la hayaa sida aad u ilbaxdeen baa loo ilbaxay fariimaad soo diraysaana waa loogyahay cidda lala soo hadlayna waa la garanayaa dadka la isku dhufunayna waa loogyahay lacagaha la bixin waa la garan shirarka la aawin waa loogyahay marka gudaha waddanka adigoo waddan dimuqraadi ah jooga aan halka hadal xanaf la aan geysan karin shalay u hoggaansan waddan dhisan dad dhisan deegaan dhisan dad walaalo ah in la kala goyliso ogolaan maayo aan xorriyadda iyo furfurnaanta iyo aan kaga faa'iidaysana wixii dan noo ah dimuqraadiyad cardune dadka deegaankeenu hadda soo baraarugay horumar u jeestay wanaag u jeestay inaan wixii sii xoojino baa fiican mooyaane inaan dhaawacno diyaar uma nihin xubnahaas iyo lamidkaana dadka iskuma jiraane sidii dad xun ay halkan u joogaan dad fiicanna loo helaya halkaana dad xun dad fiican way joogaan cid walba oo aragti qabtana xilligii isbedelka waddanka ciriiriga ahaa qurbajoogta door fiican bay ka qaateen in isbedel deegaankeena ka dhaca laakiin ciddii hunguri siyaasadeed uu ku jirina gudaha way ka halgami kartaa axsaab baa jira way u furan tahay laakiin wixii intaa ka baxsan ee dhaawacaya wada noolaasheenna amniga deegaankeenna xasiloonida dhaawacayana looma baahnayn aaminsanahay in laga waantoobana way fiican tahay deegaanka dowladdu way ka jirtaa dowlad adagna waa la noqon karaa sharcigana waa la ilaalin karaa xorriyadda iyo dimuqraadiyadda aan ballan qaadnay mar dambe dib uma noqonaysa laakiin xorriyad inta la baalmara khalkhal amni isku dhufasho kicin bulsho lagu sameeyana xorriyad looma baahnay waxay u baahan tahay in la xakameeyo dowlad ahaanna inaan saa u xakameeyin way naga go-an tahay caawa waxaan leenahay qurbo joog iyo qaran joogba nin walba ee la socda barnaamijkana tabarucaadka wanaagsan ee bilow laga qayb qaata xukuumadda maa wixii ugu horreyn wanaagsan ay samaysay jiil fiican akhlaaq leh diin xambaarsan baa inoo soo baxay marka mustaqbalka jiil caafimaad qaba diintiisa aaminsan dhaqankiisa aaminsan dhisan baa noo soo bixi doona marka dad aqoon leh unbaa tartami doona siyaasadda mooyaane tii hore lagu noqon maayo marka cid walba ha u diira garowduun jiil dhisan oo diintiisii dhaqankiisii xambaarsan dalkiisana garanaya aqoon leh unbaa siyaasadda ku tartamaye wixii hore uma soo noqonayaan uma soo noqonaya siyaasadda jiilasha cusub ee soo baxayana waxaan leenahay kuwo dadka ummadda isku wada hogaamiye qarankan aan ka mid nahay inaan hogaamino mustaqbalkiisana aan u soconnaa dad soomaaliyeed oo waddankan hogaamiyey inay abuurmaan baan ku rajoweynahay haddana ifafaalo fiican baa muuqata in dalkan taladiisa iyo go-aankiisa iyo hogaamintiisa dad soomaaliyeed ay hogaamin doonaan waan ku rajoweynahay mustaqbalkana waa la arki doonaa markaad ciddii ku haaminaysa inay deegaankan keliya maashuma annaga dalkan inaan hogaamin aan u soconnaa danta soomaaliyeed intaan meeshaa joogno waa laga shaqeeyey maanta barnaamijyo noocan oo tabarucaade dadka inay isku tashtaan isu kaashadaan isu danqadaan deegaankeena cidda joogto way taqaanaa laguma fikri jirin laakiin maanta waxaa lagu fikrayaa aan isku tashanna bulshada qaybeeda ka qayb qaadata tabarucaad aan samayna aan isu gargaarna maskax caafimaad qabtaa taagan taa un baan u soconnaa in dadka la dhisa mustaqbalkana shaqooyin fiican waa la qaban doonaa qurba joogta waxaan ugu baaqaynaa waftigaa imanaya xaqaa'iqda deegaanka ka jira inay ogaadaan wixii kulamadaas iyo dooda ay ka qabaanna halka afkaartooda ka dhiiban karaan wuu u furan yahay deegaankoodi waa xor waa nabadgelyo waa amni kaalintooda waa loo baahanyay kaalintooda waa isla qatama lagu baqaynaa waxaan jecelahay inaan xooga yara du istaago intii ay dhacday masiibadii dabkii ka kacay taywaanka jigjiga wixii noo qabsoomay marka hore waxaan jecel lahay inaan ku bilaabo oo warbixin yaroo kooban ka bixiyo maalintii naxdinta badnayd murugada badnayd habeenkii murugada badnaa oo aan mar raba maskaxdayda ka bixin wejigaynagana ku hortegin dabkii xoogganaa ee ka kacay taywaanka jigjiga habeenkaa wixii kacay waynuu wada joognay dabkaasi wuxuu kacay cabbaaro
tobankii iyo 10 daqiiqo oo fiidnimo maalintu markay ahayd 8 July 2023 wuxuu ahaa dabkaasi dab galaaftay hanti ballaadhan sidaan wada ogsoonahay suuqa Taiwan-ka Jigjiga wuxuu ahaa laf-dhabarta ganacsiga magaalada Jigjiga waxaan ogsoonahay inteena halkan fadhida intooda badan in meeshii lagu soo koriyay ee dhaqaalihii inagu baxay laga soo saari jiray inay tahay waxa lagu qiyaasayaa 80% iyo in ka badan dadka halka ku ganacsanayay inay ahaayeen haween caruurtooda ku korsanayay marka arinta aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba uga tacsiyeynaynaa dadkii dhibku ka soo gaadhay mashaqadii habeenka dhacday hawshaasi markay dhacday ka gadaal waxaan jecelahay inaan xooga yara dul istaago habeenkii sidii ay wax u dhaceen dabka xoogan markuu kacay waxa gurmad xoogani ka yimiday dhammaan dawladda laamaheeda iyo shacab weynihii dabdamisyadii ayaa si dhaqso u soo gaadhay shacabkii ayaa soo diyaar garoobay booyadaha ayaa biyaha laba celinayay falillahi alxamd dabkaas waxaa lagu guulaystay xooggii uu lahaa inuuna u tallaabin xaafadihii jaarka ahaa oo uuna geysanin waxyeelada uu hadda geystay aan ka tiiraanyeysanahay waxaa kaloon halkan jecelahay inaan uga mahad celiyo walaalaheena Somaliland ee saacaddii inoo soo gurmaday ee inagala soo qayb qaatay dabkii ba'naa ee habeenka ka kacay Taiwan-ka Jigjiga waxaan leeyahay walaaltinimaad muujiseen wada dhalashaad muujiseen damqashaad muujiseen aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa habeenka hawshaasi markay dhacday ka gadaal xukuumadda waxay bilowday markiiba in hawshaas sidii looga gurman lahaa dadaalkeeda la galo isla maalintii ku xigtay waxaa la yeeshay kulan lagaga wada xaajoonayay masiibada halkaa ka dhacday sidii looga jawaabi lahaa waxaa la dhisay kulankaa lagu dhisay guddigaas oo ka koobnaa 9 xafiis oo ahaa xafiisyada ay sida tooska ah u khuseysay hawshaasi guddigaas oo ka koobnaa xafiiska madaxweynaha oo hogaaminaya guddiga xafiiska arrimaha haweenka maadaama oo dadka halkaa ku dhibaatooday 80% iyo in ka badan lagu qiyaasay haween inay ahaayeen waxaa guddiga ka mida xafiiska ganacsiga ee gaadiidka xafiiska warfaafinta xafiiska ka hortagga khataraha iyo masiibooyinka xafiiska nabadgelyada xafiiska arrimaha bulshada xafiiska maaliyadda iyo xafiiska maamulka magaalada Jigjiga waa 9 xafiis 9ka xafiis waxaa laga dhigay guddi heer deegaan ah oo hawsha guud ahaanba la wareegaya sidii maaragtay dibdajin loogu samayn lahaa dadka dhibkaa soo gaadhayna looga gurman lahaa waxaa kaloo kulankaa la isla qaatay in guddi kale oo shacabka matalaya la dhiso guddi shacabka ka soo baxa guddigaas wuxuu ka koobnaa 3 qof oo ah culimaawidiin iyo 3 xubnood oo ah odayaasha iyo waxgaradka deegaanka iyo 3 qof oo ganacsatada ah guddigaasna wuxuu ka koobnaa 9 xubnood oo lagu xulay dadkii ugu wanaagsanaa akhlaaqiyan ugu wax lagu aaminayay hadalkooda loo istaagayay dadkii hantida lagu aamini lahaa labada guddiba shaqo gooni ayuu leeyahay guddiga dawladda ka socda ee xafiisyada ahaa waa guddi guud ahaan gurmadkan hogaaminaya dhaqaale ururintana ka samayn doona dhaqaalaha inooga imanaya hay-adaha formalka ama institutionada tusaale ahaan sida bangiyada oo kale deegaamada kale jaarkeena ah waxay inooga yimaadaa guddi institutionada formalka ah inooga imanaya ayay guddigaas ururinayaan guud ahaanna gurmadkaas ayay hagayaan
guddiga labaad oo ah guddigii shacabka ka soo baxay oo ka koobnaa 3 waaxood culimadiinka odayaasha iyo ganacsatadu waxay u qaabilsanaanayaan ururinta ama dhaqaale ururinta ka imanaysa shacabka dal iyo dibadba waxaa la diyaariyay akawno dalka gudihiisa iyo dalka dibadiisaba oo lagu soo shubi doono dhaqaalaha loogu talagalay in loogu gurmado walaalaheen guddigaas waxa uu si toos ah xiriir la yeelanayaa guddiyada kale ee wadamada Afrika gudaheeda iyo kuwa Afrika ka baxsan bays abaabulaya ee raba inay walaalahoodu soo gurmadaan guddiyada dhistay ee fundraising sameynaya si toos ah waxa ula shaqeyn doonaan guddiga dhaqaalahaasina waxa weeye 100% waxaan ku kalsoonahay inuu dadka shacabka ah ee masaakiinta ee dib ku soo gaaray uu toos u gali doono haddii Ilaahay yiraahdo inta marka laga yimaado waxa la yeeshay kulamo dadkii ku dhibaatoobay dabkaas lagaga wada hadlayo hawsha sidii loo wajihi lahaa shacabkana waxaa laga soo dhisay iyagana guddi 9 qof ah oo si toos ah ula shaqeyn doona labada guddiga dawladda ka socda guddiga shacabka ah iyo guddi dadkii dhibaatadu soo gaadhay 3 guddi ayaa si toos ah u wada shaqeynayay muddadii la soo dhaafay una wada shaqeyn doona insha Allah ta'ala intay noo dhiman waxaa markaa hawsha halka maraysay dib loo guddi kala la dhisay oo farsamada ah guddigaasoo isaguna u xil saaraa in uu daraaseeyo dhibkii ka dhacay meesha guddigaasi wuxuu soo daraasaynayay hantidii meesha ku burburtay dadkii meesha ku hanti waayay tiradooda oo saxa waxa uu sameeyay diiwaangelin qoto dheer oo si xeel dheer oo nidaamsan loo wajahay falillahi alxamdu hawshaas si fiican ayay noogu soo dhamaatay waxay guddigaasi soo saareen in khasaaraha goobta ka dhacay uu noqonayay hanti lagu qiyaasay 1 bilyan 536 milyan 864,645 bir dadka halka ku hanti waayay waxay noqdeen dad dhan 2,500 oo qoys marka aynu u bedelo shakhsiyaad waxay noqon karaan dad lagu qiyaasayo 15,000 oo qof ayaa halka cuntadooda iyo waxlaalihi waxay u baahan yihiin oo dhan ka soo saaranayay dadkaasi maanta bilaa camal weeyaan way fadhiyaan waxa kale oo aynu ogsoonahay Soomaalidu waa dad isku dul nool waa dad iscaawiya si toos ah dadka ay u saameysay mooyaane waxaa jira dadkaasi ama faamiliyadooda ha ahaadaan ama dadkii kale dulsaarka ku ahaanay dad intaa la eg ama ka badan inay iyaguna si dadban meeshaas toos ugu xidhnaayeen kuna hadda dhibaatoonayaan marka guud ahaan waxaan leenahay khasaaraha halka inaga soo gaadhay waa khasaaraha intaa leeg dadka maanta dhibkaasi soo gaadhayna waa dadka intaa leeg dad yar ma aha waxaan maanta halkan u fadhinaa inaan dadka walaaladeen ah ee khasaaraha ba'ani soo gaadhay wixii aynu kala qaban karno inaynu kala qabanno waxaan jecelahay maanta inaynaan waxba dib marsanin walaaladeen inaan garab istaagno waxaan ku soo gabagabeynayaa meeshaas kolley waa laga wada tashan doonaa si guud waan ka wada hadalay ganacsatada halkaa dhibka ku soo gaadhay waxay noqon doontaa halkaa wixii laga qaban doono in laga wada tashado dawladda iyo dadka dhibaatadu soo gaadhay inay iyagoo dhinacyada ka taagan la go'aamiyo wixii halkaa laga qaban lahaa wixii laga dhisi lahaa iyo sidii loo dhisi lahaa insha Allah ta'ala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam walaalayaal anigoo ku hadlaya afka guddidii loo sameeyay masiibadii weyneyd ee inagu dhacday ee dabka waxaan marka hore idinku soo dhaweynaynaa sida sharafta leh iyo karaamada leh
yeedhitaanka iyagii ugu timaadeen wakhtigiina qaaliga ana aad soo hurteen waxaan ilaahay idinka baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka ah idiin saaro sidaa aan guddiga magaceega aan ku hadlayaba ku xusan waxaynu isugu nimid masiibadii weynayd ee nagu dhacday ee suuqeennii weynaa ku dhacday in tabarucaad loo sameeyo tabarucaadkaas in badan baa la isugu yimiday in waxa aynu yaboohno maantase waa yaboohiisii dhaqaalaheennii oo kumanaan dadii ku noolaayeen baa burburay marka waxaan walaalaheen ku dhaanno inaynu jeebkeenna dib ugu noqonno oon bixinno oon hurro annaguna waxaan ilaahay idinka baryayna inuu maalinka la qatan yahay ruuxna ruux u baahnayn ee ilaahay la hortaagan yahay miisaankiina xasanaadka ah ku daro hadal badani meesha ma yaallo aniga soo dhoweyn iyo wakhtiga qaaligeedna siiseen mas-uuliyiinta iyo ganacsatada meesha fadhida mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin jazaakum allah khayr